kobcinta dhaqaalaha, ka shaqaynta maalgashiga qaranka, sare u qaadida dakhliga gudaha, shaqo abuurka iyo dhiirigelinta ganacsiga xorta ah ayaa looga hadlay kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen xubno ka socday xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda, ganacsato, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. shirka oo la isku weydaarsaday fikrado iyo doodo ku saabsan qaabka la isaga kaashan karo sare u qaadida maalgashiga dalka, dhiirigelinta iyo suuqgeynta kheyraadka gudaha, abuuridda suuqyo heer caalami ah iyo in la dhaqan geliyo sharciga maalgashiga ee dalka ayaa waxaa daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane Asad Yuusuf Qanyare wuxuuna ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda uu leeyahay maalgashiga wuxuu muhiim u yahay arrimo aad iyo aad u fara badan ay ka mid tahay dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha naftirkiisa muxuu muhiim u yahay waa ogtihiin waddankeena 70% waa dad dhalinyaro ee 30 ka yar badankooda shaqo la'aan waa dad wax soo bartaa ku jiro dad farsamo yaqaan ku jiro dad waay araga ku jiro bardu shaqo la'aan waa markii la dhaho maalgashi marka waxaan ka wadno ama meeshaan u jeedno goolku ugu dambeeya wuxuu yahay inaan waddankan dhaqaalihiisa kor u qaadno dhaqaalaha inaan kor u qaadnane goolkiisa oo ku sii xiga waxa waaye ama hadafka laga leeyahay waa shaqo abuur. mudane Xasan Faarax agaasimaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya ayaa sharaxay baahida loo qabo sameynta qorshaha maalgashiga qaranka. haddaan u gudubno baahida loo qabo in la sameeyo qorshahan waxaa keenaysa laba qaybood mid waa sababaha gudaha ah midna waa sababaha dibadda ah baahida loo qabo marka kuwa gudaha waxa ugu horeeya qorshe qaran baa la sameeyay sidaad la socotaan kii hore wuxuu ahaa qorshihii qaranka 8aad 3 sano ahaa runtii aad iyo maskax badan baa la gashay laakiin dhamaadkii wuxuu ku soo dhamaaday kana soo baxay qaybtiisii dabagalka ahayd in dhaqaalaha xagiis ama maalgelintiisu ay yarayd hadda mid waxaan sameynaynaa 4 sano soo socota ah qorshaha 9aad oo isla processkii soo maray meel fiican maray hadda in loo helo maalgashi ku filan oo barnaamijyada la soo qeexay ay fulaan insha Allah waqtigiisa markuu soo dhamaado. Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho.